السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا وراليال waxaan maanta barnaamijkeena xoga caafimaad kugu soo gudbi doonaa mowduuca qumanka. waxaan ka hadli doonaa waxa ay yihiin qumanka ama tonsillitis wax loo yaqaano infectionka ku dhaca qanjirada soo saara candhuufta. qumanka ama qumanku waa caabuq cune oo ay keento jeermiska bakteeriyada ama fayraska labadaba way keeni karaan. bakteeriyadu waxa faafiya dhibco ku sameysma sanka ama cunaha ee qofka qaba bakteeriyada ee loo yaqaano Streptococcus. tani waxay inta badan dhacdaa waqtiga bilaha qaboobaha marka dadku ay guryaha ku wada jiraan. waxaad caabuqa cunaha ku qaadi kartaa 2 ilaa 7 maalmood kadib marka la joogtay qof qaba cudurka. waxaa lagu kala qaadi karaa neefsashada ama aliyada oo isgaarto. sidaas awgeed waa muhiim in dadka waaweyn oo xanuunka qaba aysan ku neefsanin carruurta yaryar. maxaa lagu yaqaanaa qumanka ama quman xanuunka? maxaa lagu yaqaanaa qandho ka sareysa 38 digrii Celsius heer ahaan markii lagu cabiro thermometerka. qarqaryo ama dhaxan oo ah calaamad infectionka uu leeyahay. cuna xanuunka ama cunaha oo ku xanuuna. liqidda oo dhibaato ku timaado maadaama qanjiradu ay bararayaan. qoorta oo bararta oo idin inay bararaan waxa la lymph nodeska ama checkpointyaasha difaaca habdhiska systemka. kor xanuun iyo kala goysyo xanuun waa calaamad infection. cunno xumo oo qofku raashinkii inuu ka go'o maadaama halqista ay dhibaydo. lalabo ama matag maadaama uu xanuunkan leeyahay astaamaha malaariyada. dad badan ayaa ku qaldo oo qaato daawada malaariyada iyadana waxba kama tarto. qumanka iyo dhinaca dambe ee cunaha ayaa laga yaabaa inay guduud u ekaadaan ama bararaan oo dhibco cadaan ama jaalle oo malax yeeshaan. qanjirka ayaa yeelanaya walxo cadcad ama malax jaalle waxaana sabab u ah infectionka ka jira. xaalado dhif qaarkood ayaa cudurka qumanka laga yaabaa inuu keeno sun sababta finiin guduudan oo uu maqaarka jirku yeesho. finiincan waxaa loo yaqaanaa qandhada cas ee ifaysa. dhakhtarka wuxuu dhinaca dambe ee cunaha ka fiirin doonaa guduudasho, barar iyo dhibco cadcad ama jaalle baaritaan bakteeriyada Streptococcus oo degdeg ayaa laga yaabaa in la sameeyo iyadoo dheecaan laga qaadayo dhinaca dambe ee cunaha si jeermiska Streptococcus looga hubiyo. natiijooyinka waxay badanaa diyaar ku noqdaan muddo 10 daqiiqadood gudahood. haddii laga helo Streptococcus waxaa lagu siin doonaa antibiyootik kaniini ama cirbad hal mar lagugu duri doono. haddii qumanku ay noqdaan mid soo noqdo oo dhibaato u keena qaas ahaan ilmaha waa laga saaraa. waxaa loo yaqaanaa waxaan loo sameeyaa qalliin la yiraahdo tonsillectomy. sidee looga hortagi karaa qumanka soo noqda? haddii xanuunka qumanka dhib kugu hayo ama kugu soo laabto waxaad kaga hortagi kartaa adigoo subax kasta inta aadan wax cunin ka hor kululuqda biyo kulul oo cusbo leh taasoo ka qayb qaadanayo in jeermiska ka hortagto oo aadan fursad u siinin inuu qumanka ku tarmo. laakiin haddii aad qandho isku aragtid waxaad u baahanaysaa inaad daawo antibiyootik qaadatid iyo xanuun baabiye. xanuunka qumanka ee soo laabto wuxuu carruurta u keeni karaa infectionka oo u gudbo xubno kale oo jirka sida wadnaha. arrintaana waa muhiim. haddii xanuunku ku dheeraado carruurta wuxuu badanaa raacaa dhiigga wuxuuna tagaa wadnaha wadnaha qolalkiisa derbiyada u dhexeeya uu dhiigga ku kala gudbo oo furma ku sababa xanuuno waxaana loo yaqaanaa rheumatic heart disease. sidoo kale wuxuu gaari karaa kala goysyada ama keliyaha. carruurta looga baqayo xanuunadaas waxaa la siiyaa cirbad antibiyootiga oo bil kasta lagu durayo si jeermiska uusan dhaawac u gaarsiin wadnaha, kala goysyada ama keliyaha. dadka qaar waxay isku arkaan marka ay cadeynayaan inay tufayaan wax cad oo adag oo ur badan oo loo yaqaano dhagaxaanta qumanka tonsil stones. intaan ku soo gangooynaynaa mowduuceennii maanta ku saabsanaa tonsillitis infectionka ku dhaca qumanka. sii shargaray insha Allah taala mowduucan xasaasiga sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir barnaamijkan intaan ku kulmi doono barnaamij la mid sida ayuu nabadgelyo.
السلام عليكم.